waxa uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyay qisas fara badan oo dhalinyarada ku saabsan quraankuna waa ka warramay oo quraanku wuxuu ka warramay asxaabul kahf innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnahum huda ilaahi ba sheegay dhalinyaro haayeen ba ilaahay dhalinyaro aamanu bi rabbihim rabbigood bay rumeeyeen وزدناهم هدى با إلهي أنا كنا هنون بانو بيريني با إلهي هنون بانو زيادني ودن waxay ku noolaayeen ninka boqorka wadanka xukuma oo dadka ugu yeero inay dadku isaga caabudaan oo la oran jiray magaciisa Tuqyaanus marka iyagu ilaahay bay garteen dhalinyaradaas id qaamu faqaalu rabbuna rabbus samaawaati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alaha lawla yatuna alayhim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara ala allahi kadhiba dadkii kale oo dhan ee wadanka ay kula noolaayeen oo dhan ninkan gaalka boqorka caabudayaan ilaahu haystaan oo rabbi u aaminsan yihiin laakiin dhalinyaradaasi waxay yiraahdeen may kan waa bashar markaas boqorkii baa loo sheegay lagu yiri wadanka waxa ku gula nool dhalinyar maaragtaana ilaahay rabbinimadaada inkiraysa marka uu ciidan u soo diray marka dhalinyaradii laba ayaa loo bandhigay laba mid baa loo bandhigay in maaragtaanay diinta islaamka ay la yimaadeen ay ka soo noqdaan oo gaalnimadii ay dib ugu soo noqdaan imma in intoo iyaga sida u dhayihiin intoo la qabto la xidhxidho dhagax tuur lagu dilo dhagax tuur innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada iyaga ba ka sheekayo yiri haddayna qabtaan oo ciidanka uu boqorku noo soo diray ayna haleelaan oo ay gacanta nagu dhigaan laba mid bay nagu sameyn karaan imma inay milladooda gaalnimada dib noogu celiyaan imma maaragtaan inay dhagaxay nagu dilaan marka waxay fadleen inay dalka dhanba ay uga baxaan si diintooda iyo iimaankooda islaamnimadooda ay u xafidaan inay aabayaashooda iyo hooyooyinkooda iyo ahladooda iyo dalkooga ay joogaan waxay ka doorbideen inay islaamnimada ilaahay uu ku galladaystay inay ilaashadaan waa meesha ay culimadu leeyihiin diintaada islaamka meesha dhaawacaysa waa inaad ka tagtaa saaxiib xun oo iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya waa inaad saaxiibtinimadiisa waa inaad goysaa almar'u calaa diini khaliilihi falyandur ilaa man yukhaalil baa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofku saaxiibka diinta uu qaba ayaa diin adigana ku noqonayse ee nin walow ninka la saaxiibaysa iska eeg buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa mujtamaca dadna dhalinyarada waxay door bideen waliba waxaa la sheegaa oo kutubta ku qoran ciyaal saboola ma ahayn oo dadkoogu fuqara ma ahayn bal waxay ka soo jeedeen reero wada aqniya iyo xoolole ayay ka soo jeedeen oo maalqabeena ما لا فهمي الله ينفهم سيو لأنه واحد دور بدن مركا وضن كردن بين إسكجت تجان مركا سي ولي بواحد بحين بالله يري حل جان وكلاي مقالة ذاك بحين حل يدنا وكلاي مد كم مغنى مركا يتشنيين أو حوله سمركا صودا جنيا أو أيجي سينا ومارك تاني والله صعد كيف يمادن وأوشجن وحيل هذا أنا كوضن كوان كتجنا وكسعنا ومحاد وقصعتان وحيد هذا دين إيمانك يجا أيا قاليا إيمانك قاليا آمناد إلهي أنا من نبأ وحول بنوجا قال سنو ودن كردن وان هرينا لكن إيمانك يجا إسلام نماذج هذا علة ديك من نبأ كوير هذا ذلك هو دين توا متكيد دورتين يا دين تي دورتين ذلك هو باب أيد هذا هكذا ذلك يجا dadkayga han weyno laakiin islaamnimada ilaahay nagu galladaystay inay seegin bay yiraahdeen
ajiib dadna markaasay kiina uu raacay markaa aygii markaa isaga la socday adhiga la ilaalinayay ayaa damcay markaa inuu raaco markaasay ku yidhaahdeen aygaagan uuna sheegaya naga reeb markaasay yidhi de waayahe reeba dhagax bay markaa harraa kala joogsadeen baa la yidhi luqadii markaa ay ku hadlayeen buu aygu kula hadlo wuxuu yidhi ilaaha aad caabudaan aad rumayseen baan aniguna u qaanaa inuu yahay rabbu samaawaati waalardi maxaa seekeen reebaysaan iska kii dhaafaani raaci buu ku yidhi ay galabta af soomaalina kula hadla ka warrama sidee noqon lahayd magaalada gaarisa waa iska daayeen markaa aygii markuu la hadlay waa iska dhaafeen habeen oo dhan bay guurayeen waa la raadinayaa raadkoogaa lagu taagan yahay waagii markuu rabo inuu soo dilaaco waagu bari waa berigii markuu dhowaaday ayay arkeen markaa kahfay arkeen kahafka wax weyn waa godka buurta dhexdeeda ka soo jeeda weeyaan markaa bay idhahdeen halkan hangallo maanta oo dhan halkaa han oollo caawa cadceeddu fiidka galabta markay cadceeddu ay dhacdo oo dhulku madoobaadana han sii soconno ila maalin haddaan soconno waa layna soo arkaya markaasay seexdeen ila xalay oo dhan waxay ku jireen socod bay ku jireen safar way daaleen way seexdeen markay casar gaaban markay soo kaceen ayay is yidhaahdeen markaa sidan kuma socon karno safarka lama gali karnee waan gaajoonaynaa waan harraadsannahay cuntaan u baahannahay raashine bal nin wallow jeebadaada wixii lacag ku jirta intood soo saarto ninka inoogu maaragtaanay inoogu socod fiican inoogu degdeg badan intood noogu dhiibtaan magaaladii ha ku noqdo magaaladii waa tanoo nagama fogaa ha inoogu noqdo deedna raashinna ha inoo soo gado haddii laakiin la garto oo la qabta isaga yuuna na soo sheegina isaga keliya dhibaatada ha ku ekaato ku salliya nabigeenna sala allahu alay wasalam deedna markaasay waxay bilaabeen markaa kii baa magaaladii galay raashinkii buu soo iibiyey markuu lacagtii dhiibis yidhi ayaa lacagtii la fiiriyo sidaa loo eegay ninkii maqaayadda ama dukaanka lahaa baa ku yidhi lacagta hakeed ka keento wuxuu yidhi jeebaddeedaan ku sito anaa soo saaray lacagta cidna kama soo dhicin markaa buu adiguna xaggeed ka timido aniguna meel aan dheerayn oo dhow baan ka imiday buu yidhi lacagtaada iga qaado alaabtan isii markaasuu ku celiyay lacagtan halkeed ka keentay lacagta anigaa wato jeebaddeedan ka soo saaray oo adiguna halkeed ka timiday inteed ka timiday meel heblaayaan ka imidoo maba dheeri meeshaan ka imidee meel dhow baan ka imidee lacagtaa iga qaado baaqiga ii soo celi dadkii baa ku soo ururay markaa lacagtii baa laba ninkan lacagtu wata fiiriya buu yidhi lacagtii buu la eegay markaasaa yarkeera u naxay marka harraha laga joogsaday ayaa lagu yidhi ha cabsan ha murgin anagu dad muslimiin aan nahaa la yidhi oo dadka ma dhibno waxaan la yaabanahay lacagtan aad wadatee leedaha waxay kaga gada waxaa laga joogaa xilligay waddankan ay ka shaqaynaysay 309 sano ayaa laga joogaa baa lagu yidhi meeqa sano 309 sannadood waa 3 qarni maxaa tihiin muslimiin u yahay muslimiin yaad aaminsan tihiin allah boqorkii boqorka waama noogu dambaysa annaka maba garanaynaba ma soo gaadhina waan maqallay mooyaane aduu halkeed ka timid annagu dhallinyar baan ahayn buu yidhi boqorkaa baan ka baxsannay habeen dhan baan guuraynay waagii markuu baryu cadaadu ay soo baxdayna god baan gallo godkii bay dhallinyartii igu sugayeen hadda oo waxaan u ballansanahay caawana safar kale inaan bilowno sii baxsanno waxaa la yidhi waad war laadihiin 3 qarni buu adduunku socday waa la soo qaaday kii yaraa boqorkii waddanka xakumaya muslimkaa loo keenay waxaa la yidhi boqorkaasi boqor daaciya buu ahaa oo dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedha marka dad waxaa jiri jiray oo dalkiisa jooga oo dhimashada in bacthi la soo bixi doono in intoo la dhinto khalqiga la soo saari doono inkirsan baa jiri jiray marka daliil buu markaa u helay markaa sariixa oo markhaatimo doonto ah boqorkii iyo waxayse soo raacay iyo ciidankii iyo madaxdii iyo yarkii
waxaa dhalinyaradii nooge markaa buu yidhi haddii aan hadda ininkoo ila socdo aan ka kor dego way iga naxayaanoo in lay soo qabtoon iyakana aan soo sheegay bay imoodayaane anigaa horta u tegaye ininku ii kaadiya buu yidhi waana ka dhaadhicinayaa mawduucu siduu yahay ardulwaaqican u sheegayaa in caalamku socday oo noloshoodii iyakana ilaahay joojiyey nolosha ayaa haya baadna may cunin biyana may cabbin tintoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin awooddoodii ismay bedelin maalinkii siday ku jiifsadeen bay yihiin yaa ilaaliyey markaa yaa ilaaliyey yaa arsaaqaayey yaa baahidooda daboolayey ayaa nolosha ku deeqay biyo iyo baad waa labadaasi waa asbaabta lagu noolaadaan odhan karnaa qur-aankaan ilaahay ku sheegay laakiin asbaabtaasi waa asbaab walaakin ilaahay qofka bini aadanka inuu nooleeyo bilaa baad iyo bilaa biyo uu karaa ma daliilu calaa daalika laga yidhi asxaabulkaaf baa u daliila saddex qarni bay joogeen caalamka iyagoo biyana aanan cabbin baadna aanan cunin waana sidooda ismay bedelin walabithuu fii kahfihim 300 siniina wasdaaduu 9 qur-aanka ilahay ku sheegay godka waxay ku dhex nagaadeen baa ilaahay yidhi 309 sannadood bay ku nagaadeen baa ilaahay yidhi waana sidooda ismay bedelin iyagu innaka imika alxamdulilah iskuul baad dhiganaysaan waxbarashaad u timaadeen halkan waxaa laga yaabaa waalidadiinna qaarkood markay waaninayaan inay ku yidhaahdaan aabbo mid baa inamadiisii ku yidhi aabbo imtixaankii baa la marayaa soo maahayn haa dee bariiskiina u shaqaystay buu yidhi bariiskanaad cuntaan waa kaygii ku yaroo markaa dacwadda baxay oo iimaaniyaadkii oo aad caqiidada si fiican looga dhaadhiciyey buu dhalayo markaa buu aabba ha iga xanaaqine adiga iyo aniga iyo hooyo iyo kan iyo tan intuba hee bariiska ilaahay baan cunnaa buu yidhi aabbo markaa buu adiga tabliiqaa ku waalay buu yidhi وصل يا رسولك قصداس أصحاب الكهف waxbarashada ma diidayno wax noo barto waanu baahnaa wax noo barataan oo qofka muslimka oo qoyahan inuu noqdo waanu baahanahay laakiin hadaa tiraadid maadadan aan dhiganayo tacliintan aan dhiganayo maan wax ku cuni kara hadaa tiraadid aqeedadaada khalal ba ku jira iska sax arzaaqaduna waa gooni tacliintuna waa gooni iskuma xidhno quwadda ilaahay ku siiyeyna waa gooni arzaaqada lagu qadaray lagu qorayna waa gooni khibradda taqaanina waa gooni arzaaqada ilaahay ku qadarayna meel bay taallaayo waa gooni shaqo iskuma leh sideeda wax u baro waa gooni waa tacliin gooniya waa loo baahan yahay lagamana maarmi karo laakiin inaad tiraadidu tacliinta baan arzaaqadayda ku xidhan tahay taasaa laga digaya oo lagaaga digaya ilaahay waa sidoo doona yeelo weeyaan fariista adar fariista insha Allah waad maqlaysaan Soomaali inaad fariisataan bay niin fiican sarajooga fadhiga ka fiican ma sha Allah Allah ina barakeeyo khayr bay naga muuqda iyo jacayl ay naga muuqata jacayl diineed yarkii yaraa marka boqorkii iyo ciidankii la socday uu joojiyay isaga marka dhalinyaradii buu soo galay ka dhaadhici in dhulku uu dhaqaaqay uu caalamku socday noloshoodana ayaka la joojiyay ka dhaadhici buu siri marka ali markuu u yimidayba wuxuu u yimiday iyagoo nafta ka wada dhacday illa intuu maqnaa ayay yiraahdeen hurdada ku siyar noqda dadna way ka dhacdeen naftu iyakiiba isagii markuu soo galo dul yimiday uu arkay inay wada dhinteena isagina ilaahay ruuxdii buu ka qabtay boqorkii iyo khalqigii la socdo markay raagsadeen ayakiiba marka ka dabay yimid waxa u soo galeen dhalinyartii wada meeyda waa ka oranaya boqorku lana takhidanna alayhim masjida marka u soo galeen hay'adoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin quwadoodii ismay bedelin waa sidoodii caalamka saddex qarni buu socdo dhaqaaqa imisa ummadda la saddex qarni imisa laakiin iyagu waa sidoodii ayguna waa sidiisii markaasaa ilaahay wa nuqallibuhum
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بإلهي سقوا إلهي نبي سأو الرمى عليه الصلاة والسلام بالقيري عداد حقا مركا كتمادنا حقنا هركي أمرنيني هرك حتى جركو قاعد ما تهبنين بالليل لكن دي الرمات هي بالليل بني آدم جركيسو مقدنا وأوبا هي هي دي الرماد عدادنا جركا وأوبا هي جركا بينا وأوبا هي بعدنا وأوبا هي معانا وأوبا هي دنانا وأوبا هي إلا صعودنا وأوبا هي إلا نصينا وأوبا هي وعلى العاد مركا حقا كتمادنا حقنا هرك إلهي أوكينا وعلى ولي بمركا سائلا ونقلبهم وقلبين با إلهي مركو دنا عن ودالبا حاجه كلان ورغين حاجه مركو دالنا حاجه كلان ورغيني لكن ايغا ان لرغي لما شيغين اسغا وكلبهم باسط ذراعيه ايغو ساس وهردا سو سخدا ايغو افرت ادين بدلكو دنتا بوغنا دلكو ku qabta oo saxda madaxana dhinac dhulka saa u dhiga bani aadanka waa la rogaya jirkooga laakiin ayga lama rogayn ayga maxaa loo rogi waayay baa la yiri quraanku waxa uu sheegaya waa cilmi cajiiba quraanku wuxuu cadeeyo sheegay aygu bogiisu baa la yiri jirka bani aadanka uu ka adag yahay lidaalika aygu 300 oo sano bogiisa caloosha dhulku ku hayay ismana bedelin ama bani aadanka isaga waa la rogaya mar walba nin dhakhtar oo Jarman ayaa teknoolojiyada casrigan ay gaaladu ay wax walba ay baadbaadeen wuxuu ku ogaaday aayada quraanka loo keeno leeyahay aayada akhriso oo baara jirka bani aadanka iyo ayga bogiisa farqiga u dhaxeeya waxa uu ogaaday cilmigan ayaa keenay buu cilmigan ii sheega aayadan quraanka cilmigan ayaa sheegay anagu cilmigan haddaan helay buu kuleeyahay oo aalaadkan aan ku helay oo ku iktishaafnay bani aadanka jirkiisu saacado wax ka badan inuu dhinaca u jiifi karayn ama aygu inuu boqolaal sano xagga u jiifi karo aalaadkan aan ku helay cilmiga ininka ayaa inii sheegay وعلى العلم وحكو صدقي نبي الأمي الهاشمي القريشي نبي أمي معنيه سواء معي وكا يسقوا أنا قاعد يسوحنا كو قرينين وحا الله قرنا أنا آخرين كرينين نبي عليه الصلاة والسلام كصليا نبي قرآن كو صدقي بكو الرميع إنه أيقو صدح قرن وبقي سكو جيفي مرقاسا نبي قال لقوي لحداد كو بحي لحيد أيكو قدك جيفة آدو تقي لحيد marka uu horeysaba lagu yiraahdo qalbigaaga cabsi baa laga buuxin lahaa markaad aragtana waad baxsan lahayd baa nabiga lagu yiri aayada mufassiriintu waxay sheegeen waa la arkay dhalinyarada inay godka ku jiraan leena waa 3 qarni weeyaan waa la arkay laakiin qofkii arkaba la yiri markuu arkaba uu baxsanayay markuu sii jeestana cabsi baa ku dhacaysa qalbigiisa dadna maskaxdiisa daakiradiisa waxa inuu arkaba waa laga masaxay إنه أركب ولا كم مسحي يا كم مسحي يا كم مسحي الله إلهي لأن إلهي عز وجل قدرة ديسو هي سنة ديسو نظام جاري وصعتويا قدرتنا سنة كسر رسالة ولا أركاي قف اللي يقف كي أركبال وبحسناي ماركو سيجي استنى بالله قلبي سوحة لقول ذاي عبسي بالقول ذاي قف قص عبسي بالقول ذاي مركبة بس الدودي القرآن كان لقول شيء القرآن كنا ومنزل إلهي حق سوك الصدقي وكلامك إلهي عز وجل ذات هذا إلهي بالقرآن كصوبحي جبريل بالله صودي عليه السلام جبريل قلبك نبينا عليه الصلاة والسلام بالقرآن كو أخري كو رجيي مرقا قصة القرآن كان لقول شيء سو قصة علوس ما حل لقول شيء ما تقانا لأن حل جدًا يرنمدا ونكدًا يرادو ولو عليه هي ولا وقت كان الصعداء أي يكو أنت كسر حدين زمن كوحي جري قال لمدي يكفرجي يفسادي يفسقي جري أنت كسر حدين أي إلهي عبادتي سي طاعتي صوبا بحال مركز الله وجه سورة الكهف وأنا سورة مستحب أي تهاي مالنت الجمعة دي الله خرستو وسورة النبيين ويد عليه الصلاة والسلام أوائل كيجا وفي روايتنا أواخر كيجا ونبي يقول قف أخرست توبك هري أما توبك الضمبة في الند الدجال بوكبت بهذا يا أبو نبي يقولوا إلهك إلى لنا يا